wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa sheegay in deegaanada Soomaaliland aanu ka hadli karin madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu hore u sheegay in aan la kala goyn karin 18 gobol ee Soomaaliya. Markii Muqdisho fadhiya Hargeysa in gobolka iyo qaran tahay midna wax laga weydiin maayo. Hargeysa waa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaalilandna waxay ka kooban tahay 13 gobol. Isaguna wuxuu ka hadlayaa wax kale oo manaa barigiisiyaad barraa ugu dambeysay. wasiirka oo maanta khamiis warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxa kale oo uu sheegay in wasaaradda ahaan aanay qayb ka ahayn khilaaf maalmihii la soo dhaafay u dhaxeeyay ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Solja. wasiirka warfaafinta waxba iskuma maro wuxuu ka shaqeeyaa inay saxaafaddu jirto inay saxaafaddu waqtigii loogu talagalay shirkeedii qabsatana waanu ku ilaalinaa annagu gacanta kulama jirno waanu caawinaynaa waxa ay sameeyeen guddida fulinta ee Solja guddi qabanqaabay magacaabeen guddidii qabanqaabo iyaga isqabtay guddi dhexdhexaadineed baa gashay oo odayaashii ugu waaweyned ee saxaafadda imikana hawshii waxa gacanta ku haya guddidii dhexdhexaadinta ahayd ee iyaga dhexdhexaadinayay oo hebella aan wada garanaysaanoo ugu garaadsateen saxaafadda iyagoo jooga ayaa gacanta ku haya guddidii qabanqaabada ay gacantooda ku magacaabeenna way diyaarisay wixii hawl ay qaban karaysay. مسؤولين كترسن حزبية سياسة Soomaaliland ayaa hore jawaab uga bixiyay hadalka madaxweynaha Soomaaliya iyadoo wada hadallo socda Soomaaliland iyo Soomaaliya kaasoo lagu wada inuu dhawaan qabsoomo wajigiisa lixaad Khalid Xabsi Kalsan TV Hargeysa.